kulankan ay yeesheen saxiixayaasha roadmap-ka oo hogaaminayay madaxweynaha dawladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Ms. Hillary Clinton ayaa looga hadlayay sidii loo dhameystiri lahaa heshiiskii roadmap-ka isla markaana looga qayb qaadan lahaa geedi socodka nabadda ee dalka Soomaaliya si looga baxo ku-meel gaarnimada. Ms. Clinton oo saxaafadda la hadashay intii kulanka aysan la qaadan saxiixayaasha roadmap-ka ayaa amaantay hawshii ay qabteen xukuumadda ku-meel gaarka ee Soomaaliya sidoo kale waxa ay tilmaamtay sidii loogu baahan yahay in la dhameystiro waxyaabaha hore inta ka dhiman 20 Agost oo ah xilliga ku-meel gaarnimada ku eg tahay. Ms. Clinton waxa ay ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan dawladda imaan doonta wixii ka dambeeyay 20 Agost hadaladeedina waxa ka mid ahaa We are very encouraged by the progress that the leaders have been making to meet all the requirements of the roadmap by the August 20 deadline. And I will be looking forward to discussing with the President and others the remaining tasks to be concluded, and then the work that will begin after August 20th to support the new government and to provide the kind of international sustainability that the people of Somalia so deserve, so they can have the opportunity for a peaceful future with prosperity and development for the betterment of all the Somali people. markii kulanku soo idlaaday waxa saxaafadda la hadlay madaxweynaha dawladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed isagoo matalay dhammaan saxiixayaasha roadmap-ka. Madaxweynuhu wuxuu faahfaahin ka bixiyay shirkii ay la qaateen xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Ms. Clinton iyo sidoo kale kulan u gaar ah saxiixayaasha roadmap-ka oo ilaa maalinta berrita ah socon doona. halkan waxa ka dhacay maanta laba shirka koowaad waxa waa shirkii saxiixayaasha shirka labaadna waxa waa shirkii aan la lahayn wasiiradda arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton shirkii saxiixayaasha waa socod doona ilaa berrito wuxuuna ku saabsan yahay ka tashiga dhamaystirka roadmap-ka oo soo gaaray meel aad iyo aad u fiican. shirka labaad wuxuu ahaa shirka aan la yeelanay wasiiradda arrimaha dibadda wafdiga la socday asaguna wuxuu xoogga saarayay dhamaystirka processka iyo waxa ka dambeeya August ayuu xoogga saarayay. wuxuu u dhacay si aad iyo aad u wanaagsan warbixin la kala dhageystay taageero dawladda Mareykanka ay muujiyeen inay diyaar la yihiin iyo in August uu ku dhamaado ku-meel gaarkii ayna ka bilowdo nidaamkii cusbaa ee la rabay inuu bilowdo dawlad caadi ah oo Soomaaliya halkaas inay ka bilaabato. kulanka Ms. Hillary Clinton ee la qaaday saxiixayaasha roadmap-ka ayaa ka mid ah kulamo lagu taageerayo sidii loo dhameystiri lahaa ku-meel gaarnimada dalka Soomaaliya. Cabdi Fataax Maxamed Cilmi, Hon Cable TV, Nairobi.